muuqaal kale iyo macluumaad cusub. Muuqaalkan waxaan ku soo bandhigaynaa ku iftiiminaynaa fursadaha macallimiinta uga bannaan dhanka online-ka internet-ka ee aysan macallimiinteenu sida wanaagsan hadda uga faa'iidaysan. Online-ka internet-ka waxaa ka jira fursado aad u badan kuwaas oo qofka uu ku korin karo dhanka dakhliga soo gala. Fursadahaas waxay u baahan yihiin fahan, xirfad iyo aqoon. Macallimiinta waxaan ka hadlaynaa siyaabaha ay fursadahaas uga faa'iidaysan karaan. Qaababka ay macallimiintu uga faa'iidaysan karaan iyagoo hawshooda wata ay ku abuuran karaan ilo kale oo dakhli soo geliya. Waxaa ka mid ah macallin kasta waxa uu dhigaa tusaale ahaan maado ama ka badanba. Maadadaas waxa uu u leeyahay aqoon in muddo ah ayuu ku jiray, cashiradeeda wuu diyaariyaa, waxaa u sahlan cashiro taxane ah inuu ka sameeyo. Maxay u soo kordhinayaan cashiradaas hadduu sameeyo? Sideese ayuu uga faa'iidaysan karaa? Tusaale maadadan ayuu dhigaa waa maadada af Soomaali ama waa maado kaleba. Wuxuu ka diyaariyey cashiro taxane ah oo tirada ay doonaanba ha gaaraan 20, 50, 30, 100 intii dooniba ha ahaadaane. Cashiradaas uu diyaariyey wuxuu uga faa'iidaysan karaa inuu samaysto website isaga u gaar ah, maadooyinkaasna uu geliyo, kadibna maadadaas dad u baahan ay ka iibsadaan, bille ay wax u bixiyaan, ama si kale koorsada oo dhanba in laga gato, uu qof ka gato, sidaasna uu ku qaato cashiradii ay ugu furmaan si lacag la'aan ah. Keliya diyaarintaas hore ayaa waqti uga baahnaanaysaa. Kadib marka uu website-kaas dhisto, website-kana hadda waxaa soo baxay waxyaabo kala duwan oo qofka iskii website ugu dhisan karo. Haddii uusan fahan saas ka haysaninna dad u samayn kara ayaa jira oo khidmad yar marka hore uu siinayo. Kadibna cashiradiisaas ayuu gelinayaa. Cashiradaas ay waxay u samaynayaan faa'iido. Qaabkay dakhli u soo gelinayaan waa inay dadka danaynaya cashiradaas ay iibsadaan. Qaab bilaa u iibsadaan ama qaab koorso dhan ah ha iibsadaan. Sidaas uu ku soo galo dakhli. Dunida dadka maadooyinka aqoonta u leh ama macallimiintu waxay ka faa'iidaystaan. Waxay aqoonta u leeyihiin inay ka diyaariyaan cashiro fiican. Kadibna website ay leeyihiin ay soo geliyaan. Halkaasna uu ka soo galo dhaqaale noloshooda wax ka bedela. Hadduusan ka bedelina kab fiican u noqda. Nolosha maciishada ayaa isbedelaysa. Waxaa soo baxaya waxyaabo badan ama baahiyo badan. Dhaqaale kugu filnaa 2 sano ka hor ayaan hadda kugu filnayn. Si baahiyaha soo badanaya ee dakhligaagu ay iskula socdaan, waxaa muhiim ah inaad ka fikirto dhinacyo aad wax ku soo saari karto adigoo tiknoolajiyadda iyo internet ka faa'iidaysan kara. Marka macallimiintu waa hab ay ka faa'iidaysan karaan habkaas. Qaabab kale uga faa'iidaysan karaan waxaa ka mid ah inay samaystaan sida YouTube iyo Facebook. Labadaas oo kale kolba midkii u fududaada inay samaystaan marka hore, laakiin waxaa wanaagsan hal mid oo kale inuu ku bilaabo. Markuu midkaas xooga saaro inuu midka kala samaysto. Labadaas midkood marka uu samaysto cashiradii uu diyaarsaday uu u diyaarsaday qaabkii aan ka soo hadlaynay ee website-ka ahayd cashiro ka duwan inuu u diyaarsado. Haddii cashiradaas uu u diyaarsaday website-ka halkaas ay ugu kooban yihiin maadaama ay yihiin kuwa la gadanayo uusan rabin inay faafaan, waa inuu cashiro kale u diyaarsadaa. Laakiin qaabkaas hore hadduuna isticmaalaynin waa inuu cashiro diyaariyaa
kuwaas ka madax bannaan ama qaabka hadduusan isticmaalayninna inuu halkan cashiro u diyaarsado. Cashiradaas ay noqdaan kuwo dadka wax usoo kordhinaya, isagana aqoontiisa uu kusii horumarinayo. Cashiradan uu baahinayo waxay u abuuri karaan il dhaqaale. YouTube iyo Facebook waa mid ka mid ah ama labaduba waxay ka mid yihiin meelaha dhaqaalaha fiican laga sameeyo xilligan. Macalinka xiisadahan uu bixiyo inuu duubto oo si gaara u samaysto kadibna uu barihiisa soo dhigo, wuxuu gaari doonaa, inkastoo laga yaabo inay muddo ku yar qaadato bilooyin, kolba dadaalkiisa ku xirnaanaysaa, ka yarna way ku qaadan kartaa, inuu dhaqaale ka sameeyo. Passive income waxay dhahaan, inuu gaaro heer isaga oo jiifa inuu dhaqaale samayn karo. Hadda waxaa laga yaabaa markuu xiiso dhigayo un inay wax soo galaan isagoo jiifa inuu dhaqaale samaynayo. Waxaan ugula jeedaa barihiisii sida Facebooka iyo YouTubeka muuqaal uu geliyay ayaa lacag samaynaya isagoo iska jiifa. Halkaasna waxaa kasoo gelaya dakhli uusan ku tashanaynin oo ka fiican u noqonaya. Waxaa soo baxaysa inay kala duwanaadaan ilihiisa dhaqaalaha ay kasoo geli karaan. Waa fursad aan isleeyahay macallimiinta Soomaaliyeed way ka faa'iidaysan karaan labadan qaabba, inay cashiro taxano ah oo dheer sameeyaan oo ay uga faa'iidaystaan website halkaasna laga iibsado, ama inay cashiro sameeyaan, cashiradaasna ay kusoo baahiyaan barahooda bulshada, inay baraha bulshada ka samaystaan ciwaano. Waxaa ugu muhiimsan Facebook iyo YouTube, halkaasna ay kusoo baahiyaan cashiradoodii, ayna ka helaan dhaqaale, iyagoo dadkiina wax u kordhinaya, iyagana inay wax kororsadaan. Marka waa kaalin u bannaan macallimiinteena, dhaqaaley ka samayn karaan, balse hadda ay ka maqan yihiin marka dunida kale loo fiiriyo. Dunida kale intaas oo qof ayaa waxay leeyihiin janaale YouTube ah ama Facebook ah, waxay kusoo gudbiyaan cashiro dadka ay wax ku barayaan. Cashiradaas dadka inay ka faa'iidaysanayaan ka sokow, iyagana waxay u samaynayaan dhaqaale, iyagoo hawlo kale iska haysta ayay halkan dhaqaale uga samaynayaan. Marka macallimiinta waxaan usoo jeedin lahaa inay xoogga saaraan sidii halkaas ay dhaqaale uga samayn lahaayeen, ay isugu taxallujin lahaayeen inay labadaas meelood ka faa'iidaystaan. Waxaan ka hadli doonaa haddii aan u aragno baahi inay ka jirto. Nala soo wadaaga haddii aad doonaysaan meelaha si aad u bilaabi lahaydeen muuqaallo ku saabsan inaan soo samayno. Qaybta faallada ayaad nagula soo wadaagi kartaan. Muuqaalkan intaa ayuu ku egyahay. Saaxiibada kale la wadaag.